degmadan deegaan ahaan dhacda dhuunta iyo dhuuxa nugaasha waa xudune waa magaalo afarta gees ay ka xigaan buuro gaagaaban. xudun waxay xad la leedahay gobolada Togdheer, Sool iyo Sanaag, waxayna ka mid tahay afar degmo oo qadiimi ah oo leeyahay gobolka Sool. waxay caan ku tahay hilibka iyo caanaha xoolaha maadaama ay nugaal ku taal oo ah dhul xoolo daaqeena. degmadan waxaa bilow ka ah isku tashi bulsho oo dadka deegaanku ku dhisanayaan waddo laami ah oo isku xiri doonta magaalada Laascaanood iyo Xudun, maadaama ay muddo gaari waa ka ahayd gobolka intiisa kale, dhibna ay ku qabeen maridda waddo raf ahayd oo hooyada awr kale dhaawaca iyo dhibanaha kale ay dhib kale kulmi jireen waddada maridani marka heltiboosyadu maara u waayaan loona dhigi jiray gobolka. fikir xoog iyo xoolo ay isku geeyeen waayeelka iyo waxgaradka deegaanku waxaa 10 kiiloomitir maraysa wajigii koowaad ee waddada, sida uu sharaxayo injineerka waddada gacanta ku haya. waddadaasi inta hadda la sameeyay waa 10 kiiloomitir 740 mitir weey. waxay ka bilaabatay magaalada Koonaheeda, halka laga soo galo magaalada laba meelood baa laga soo gali jiray. meesha ugu weynna waxay ahayd halka la yiraahdo Duska. waa laga bedelay meeshii waddadii hore ahaan jirtay. dhinaca kale oo safarka kale loo bedelay waddadii dhinacaas loo bedelay. waxay keentay kulley dheeraad iyo caqabado badan, buuro badan bay martay oo noqday in la gooyo oo kharash badan inaga galo. 10 kiiloomitir 740 kaas markii hore waxaa la sameeyay clearance baa la sameeyay, waa la dhammaystiray. waxaa lagu bilaabay gooyntii iyo buuxintii baa lagu bilaabay, qaybtaana waa la dhammaystiray. waxa la wixii bohol ahaa iyo wixii buur ahaa dhammaan waa la gooyay oo waxaa laga dhigay meel ku wanaagsan socodka gaadiidka. deegaankan waa mid nabad ka jirto, waxay baahi weyn u qabtaa inay gacan u helaan wadadan sidii loo dhisi lahaa, sida sharaxayaan odayaasha deegaanku oo fariin u diray bulshooyinka Soomaaliyeed. dadku aad iyo aad bay isugu tashadeen, waxay u qaateen markii maxaad qabsan kartaan oo wax idin ku daro hay'adda DRC tinooti maxaad qabsan kartaan wixii aanu qabsan karin oo noogu daraa oo ahaa jidka oo degmada tan hadda marka Xudun la yiraahdo saadkeedu wuxuu nooga yimaadaa Boosaaso iyo Laascaanood. inta badan Laascaanood buu nooga yimaadaa. haddii roob jidka xiro meesha wax saadi ma iman jirin, raashin ma iman jirin, dawo ma iman jirin, meel go'dan ay ahayd. waana degmo weyn oo qadiima sida odayaashu uga soo sheekeeyeen waa qadiim. marka waxaanu dooranay waddada marka aanu hantidu urursanay wixii ay kari kartaan hay'adii baa noogu dartay, saas ay waddada ku fushay. waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa deegaanka Xudun ee contribution-ka kaga qayb qaatay waddadan. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa intii hawsha nagala qayb qaadatay, intii dhaqaale ku bixisay, intii tala ku bixisay, intii xoog ku bixisay, in miisaanka xasanaadka ilaahay u saaro. intii aan nagala qayb qaadanna waxaan jecelahay inay nagala soo qayb qaataan. saxaafadda maanta waxaanu ka faa'iideynaa wuxuu yidhi waxaad ogtahay ma kuu sheegaa. horta waddadan waa la wada og yahay, laakiin waxay sii kufinaysaa war maanu ogeyn maxaa nalagu soo sheegi waayey. qurba joogtii khayrka qabtay meeday, gabdhihii jaaliyaduhu meeye, gabdhihii silsiladaha u furi jiray jidadka iyo wixii importini meeye iyo horumarka, dadkii dhalinyarada ah ee firfircoonaa ee reer Xudun meeye. waddadan waxaan ku magacaabanaa horta waa waddada reer Xudun u abaabulay waddada, way ku mahadsan yihiin. anigoo ku hadlaya afka guddida waddada waday shirgudeenkeeda baan ahay. marka waxaan u sheegayaa horta in yoolkan waddadu aan u qaadanay Xudun waanu ka qaban qaabinay. waddada reer Xudun ma leh, waxay qusaysaa deegaamadoo dhan. waxayna ku magacaaban tahay Sool iyo Sanaag, waddadii isku xiri lahayd. insha Allah bidmillaahi kariin inay noo noqoto yoolka iyagu weeye. waxaan leenahay dadka aan nagala qayb qaadan siiba jaaliyadda waxaan ugu qaylo dhalaami weynay jaaliyadda reer Xudun iyo jaaliyadaha kale ee deegaamada
dhaxaaba waxa la yiraahdaa wax kasto deegaamada la soo qaado waxba la cunayaa horta reer xudun hadaan nahay inaanu anagu wax qabsano oo waxa aanu qabanno jaaliyada iyo qurba joogta iyo dadku dhammaan la arko marka aanu wax qabsano iyo maamuladu iyaguna ay ku soo dhawaadaan wax nala qabtaan waa sida la idin sheegay dalku waa dal nabadgelyo meesha doontaan baad seexanaysaan mari kartaan waa dad aad iyo aad u wanaagsan waa dad dhibtii arkay kuna ababiyay dhalaankooda nabadgelyada midhaha ay leedahay nin waliba meeshu doono seexanaya lama oranayo kan meel heblu ka yimi gobol buu ka yimi meel buu ka yimi waa dalka Soomaaliyeed ee walaalaha inta markaan uga gudbo wadada waxa la yiraahdo horta Soomaalo dhan dal ajnabi oo dhan umada oo dhan bay wax taruta gobol male oo maamul male oo shakhsiyaad gaar ah male oo dawlad federaali male waa umada Soomaaliyeed safarkooda iyo wanaagooda weey haweenka oo hormuudka horumarka iyo nabadda oo dadka inta badan ku dhacdo dhibaatadu isla markaana baadi goobaya siday uga bixi lahaayeen marka anagu hadaanu nahay haweenka waanu ugu jilicsanahay wadada tawmulaysa iyada oo maxay tahay aan isbitaal fiican ba haday doonto aan haysan ay jidka ku dhig baxdaa tan maxay hayto kale maxay tahay sida kale waxa uu sataa saasoo kale marka wada rafaba anaga aad noo daashatay in badan daashatay hadda waanu jecelahay inaanu wada fiican oo aanu micnaha danahayaga iyo micnaha duruufta nala soo gudboonaata aanu si degdeg uga baxno marka aad baanu arinta u soo dhaweynaynaa marro inaanu qabsanahay wax kasta xilliga Ilaahay ku qadara la qabtaa marka wadada waanu taageeraynaa cod dheer iyo cod gaabana waxaanu ku leenahay hay'adaha samafalka jecel maxay haytay warbaahintiinan oo kale oo ka qayb qaadata bulshada samafalkeeda oo micnaha xubinta lambar 1 ka ah oo micnaha meel kasta ama u dhuun daloosha ama maxay haytay fikirkeedii talooyinkeeda fiican aad ka dhiibataan aad baan idinku mahadinayaa idinkuna warbaahintu waa waxyaalaha ummadda Soomaaliyeed aad u taageerta wali waxa inoo laaban warbixino kale iyo barnaamijyo waa safarkii nabadda ee wada hadal baa horumar lagu gaaraa Cabdiqani Axmed Maxamed fantastic warbaahinta Daljir Garowe